bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawade halkan waa xanta wararka haddii aad ku cusub tahay kuusoo biiro ka mid noqon daawadayaasha ku xiran legrey shergarey aaraahdaadii waxay kula tahay ka dhiibo annagoo idiin soo gudbin doona xogo iyo dhacdooyinka ugu dambeeyay ee Soomaaliya ka taagan waxyaabo aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan waxaa ka mid noqon doona Soomaalida ku sugan Ukraine oo ku jirta xaalad qus ah aan idiin soo gudbin doonaa gurmadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee halkaasi oo wili markaasi aanan muuqan iyo howlgal culus oo laga sameeyay Muqdisho oo xashishada lagu baacsanayay koonfur galbeedna waxa ay shaaciyeen jadwalka doorashooyinka federaalka ee Soomaaliya qodobada iyo kuwa ay ka mid yihiin ayaan eegi doonaa ilaa iminka imiso ama tirada xildhibaanada ilaa iminka la doortay inta dhiman iyo sida maamulada ugu kala horeeyaan ayaan sidoo kale idiin bidhaamin doonaa oo aan idiin soo gudbin doonaa halkan waa xanta daawadayaal saaxiibayaal ku soo biiro ka mid noqda daawadayaasha ku xiran subscribe saar legrey shergarey aaraahdaadii waxay kula tahay ka dhiib adigoo la wadaagaya saaxiibada xogaha dhacdooyinkii warbixinada halkan aan idinkugu soo gudbino Soomaalida ku dhaqan Ukraine ayaa ku jira xaalad quus ah waxaana sidoo kale ay sheegayaan inay ka bixi laayihiin Kiev oo ah halka dirirta ugu xooggan ay ka socoto dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku xayiran dalka uu dagaalku ka socdo ee Ukraine oo maalintii afraad oo xiriir u wajahaya duulaanka Ruushku ku qaaday halkaasi qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xayiran dalkaasi ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in maalinta ka dambaysa ay xaaladdu ka sii dareyso isla markaana uu maanta dagaalku aad u sii xoogaystay Cabdiqani Mayo Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda ku sugan caasimadda Ukraine Kiev wareysi ayuu siiyay idaacadda VOA waxaana uu ku sheegay in hadda xaaladdu ay adag tahay wiilkan oo taariikh ku galay dalka Ukraine ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 jeer uu ku guuldareystay inuu ka baxo dalkaas sidoo kalena in ka badan 2 sano ayuu markaasi ku xirnaa xabsi dalkaasi Ukraine ku yaala kadib markii laga soo qabtay xuduudda Cabdiqani ayaa sidoo kale sheegaya in isagoo Soomaali badan ay hadda markaasi ay ku xayiran yihiin caasimadda Kiev oo bandow lagu soo rogay isla markaana ay qorsheynayaan in wixii bari ka dambeeya ay isaga baxaan dalkaasi markii bandowga laga qaado caasimadda oo dagaalku ugu xooggan uu ka socdo hadda sida ay maanta ay sheegtay wasiiradda arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss dagaalkaasi waa dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa sii xoogeysanaya waxaana markaasi ay saadaalinayaan in dagaalku uu sii socon doono sanado badan maadaama Ruushyaanku ay iska caabin xooggan kala kulmeen dadka iyo markaasi dagaalyahanada Ukraine ee markaasi dadyo badan oo dadka dhalinyarada iyo duqowda u badan iyo dadka cuslaadayba ee markaas hubkii qaateen oo ay u qaybiyeen taasi oo ka dhigan iska caabin xooggan oo Kiev la gali waayay iyadoo markaasi magaalo kale oo markaasi Ruushyaanka hore u soo qabsadeen laga qabsaday waxaana dagaalku ay saadaalinayaan Britain in sanado uu qaadan karayo Cabdiqani Mayo waxa uu sheegay inay waayeen wiil Soomaaliyeed oo xanuunsanaa kaasi oo ka mid ahaa dadkii laga sii daayay xabsiyada Ukraine si naftooda ay u badbaadiyaan amnigeena halis ayuu ku jiraa dagaalku waa sii xoogeysanaya magaalada lagama bixi karayo oo waxa markaasi saaran bandow ciidanka ayaa irdaha noo taagan dukaamadii magaalada waa la xiray waxaan ku noolnahay cuntooyinka fudud oo aan soo adeeganay intii aan la xirin goobaha ganacsiga ayuu yiri Cabdiqani Mayo oo ku sugan halkaasi doorashooyinka ayaan aadaynaa markan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa shaaciyay jadwalka 6 kursi yaa ku fadhiya hadaba maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa shaaciyay xilliga la qaban doono doorashada 6 kursi oo kamid ah kuraasta doorashadoodu ay ka dhaceyso Baydhabo kuwaasi oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ah guddiga sida koonfur galbeed ayaa soo saaray jadwal cusub oo ku aadan qabashada doorashada 60 kursi oo kala ah eber waa hob 275 hob 230 hob 183 hob 178 hob eber konton iyo hob 253 qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in kowda bisha March ee bishan markaasi Britain la doonto ah la soo gudbin doono ergada kadibna la siin doono tababaro ku saabsan doorashada sidoo kale guddidu ay sheegay in diiwaangelinta musharaxiintu ay bilaaban doonto 2 bisha kadibna 3 bisha la qaban doono doorashada 6 kursi ee la shaaciyay ayaan eegaynaa yaa ku fadhiyay hob 275 waxa ku fadhiya Sheekh Shaacir Sheekh Maxamed Xasan hob 230 waxa ku fadhiya Maxamed Abdiraxmaan Aadan Ibrahim Ibi hob 183 waxa ku fadhiya Sandera Maxamed Iftin hob 178 waxa ku fadhiya Xasan Ali Maxamed Amar Dambe oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaaniga Soomaaliya hob eber konton waxa ku fadhiya Cabdi Wahaab Xuseen waa ugaas Xuseen ugaas Khaliif
oo ah wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya. Hob 253 waxaa ku fadhiso xildhibaan Zamre Ibrahim Cumar. Tallaabadan ayaa qayb ka ah fulinta balantii ugu dambeysay ee golaha wada tashiga qaranka ee uu shaaciyay in doorashada baarlamaanka la soo gabagabeeyo 15 bisha Maarch. waxaana maamulkaasi Koonfur Galbeed laga yaabaa ama ay qorsheynayaan inay soo gabagabeeyaan 3 bishan soo aadan. Haddaba ilaa iminka imise doorasho ama markaasi kuraas ayaa markaasi la soo gabagabeeyay. waxaan eegi doonaa tirada xildhibaanada la doortay inta dhiman iyo sida maamulada ugu kala horeeyaan. doorashada xildhibaanada gobolada shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa markaasi iminku xawaa markaasi xawli ku socota 275 xildhibaan ayaa hadda maraya heer gabagaba ah. tirada guud markaasi ahba waxaana hadda la doortay 67% xildhibaanada golaha shacabka. guddida doorashada heer federaal ayaa soo saaray xog ku aadan tirada xildhibaanada gobolada golaha shacabka ee ilaa hadda la doortay iyo inta harsan. waxaana sidoo kale ay guddidu shaaciyeen sida maamulada ugu kala horeeyaan doorashada. sida ay shaacisay guddida doorashada waxay ilaa hadda la doortay 185 xildhibaan oo ka mid ah 275 xildhibaan. 45 ka mid ah dumar ayay yihiin, waxaana harsan 90 kursi oo iyana la filayo in maalmaha soo aadan la soo gabagabeeyo. gobolada waqooyi ee Somaliland ee golaha shacabka ayaa ah kuwa 46 kursi oo ay lahaayeen soo gabagabeeyay. sidoo kale Banaadir 5 kursi oo ay lahaayeen way soo gabagabeeyeen. waxaa harsan Puntland, Jubbaland iyo Galmudug oo qayb ku harsan yihiin iyad markaasi doorashada kuraasta qaar. haddaba tirada kuraasta Somaliland 46, Jubbaland 43, Galmudug 37, Hirshabelle 38, Koonfur Galbeed 69, Puntland 37 iyo Banaadir oo 5 ah. waxaa la doortay 46 oo Somaliland ahba. tirada guud Jubbaland waxaa laga doortay 23 oo ka mid ah 43dii markaasi ay lahaayeen 23 ayaa laga doortay. Galmudug 37 ayaa lahaayeen laakiin 26 ayaa la doortay. Hirshabelle 38 ayaa lahaayeen 20 ayaa la doortay. Koonfur Galbeed 69 ayaa lahaayeen 50 ayaa la doortay. Puntland 37 ayaa lahaayeen 15 ayaa la doortay. Banaadir 5 ayaa lahaayeen 5 waa la doortay. wax ku dhiman ma lahan. waxaa markaasi Somaliland wax kuma dhinna. Jubbaland waxaa ku dhiman 20, Galmudug waxaa ku dhiman 11, Hirshabelle 18 ayaa ku dhiman, Koonfur Galbeedna 19, Puntlandna 22. si kastoo xaaladda noqotaba Somaliland 100% ayaa dhameeyeen. Jubbaland 53%, Galmudug 70%, Hirshabelle 53%, Koonfur Galbeed 72%, Puntland 41%, Banaadirna 100%. si kasta oo xaaladda noqoto 40 dumar ah iyo 145 rag ah ayaa la doortay. sidaasi ayaa markaasi xaaladdu tahay iyo qiimeynta guddidaasi doorashooyinku ay shaaciyeen. markana waxaanu eegi doonaa daawadayaal saaxiibayaal Soomaalida markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa howlgal lagu soo qabqabtay maandooriyaha ka sameeyay Muqdisho. ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ayaa xalay howlgallo ka sameeyay magaalada Muqdisho kaasi oo ujeedkiisu ahaa la dagaalanka waxyaabaha ammaanka dooriya. howlgalka ayaa waxaa si gaar ah looga sameeyay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir iyadoo lagu soo qabtay maandooriye iyo dadkii markaasi ka ganacsanayay. dadka la soo qabtay waxaa ka mid ah haweeney qiratay inay iibinaysay maandooriyaha balse waxa ay sheegtay inay u geysay duruuf haddana iska dhaafi doonto. da'deedan waxa ay ku sheegtay 80 jir. inkastoo ay ku mahadsan yihiin saxaafadda inay qariyaan wajigeeda, haddana waxay markaasi ahayd haweeneydaasi markaasi inay qiratay falkaasi oo ay ku iibinaysay. innaga oo fulinayna amar ka soo baxay madaxda dalka waxaanu ku dhawaaqnay howlgal aan kula dagaalamayno waxyaabaha ammaanka dooriya. howlgalkan waxa uu qayb ka yahay howlgallo ballaaran oo ka socda 17 degmo gobolka Banaadir ayuu yiri taliyaha saldhiggaasi Xamar Jajab. dhankiisa gudoomiyaha maamulka Xamar Jajab Muudey ayaa ka hadlay howlgallo laga soo sameeyay degmooyinka degmadaasi Xamar Jajab. waxaana uu soo dhaweeyay howlgalkaasi waxaana uu sheegay inuu sii socon doono si loo xaqiijiyo amniga. dhawaan duqa Muqdisho ayaa shaaciyay inay la wajibaari doonaan dagaalka ka dhanka ah maandooriyaha, isagoo markaasi sheegay in dadka isticmaala ay ka halis badan yihiin kooxaha markaasi qaraxyada iyo dilalka ka geysta magaalada caasimadda ee Muqdisho. sida hadalku u dhigay Cumar Filish. si kastaba muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada ammaanka ayaa xoojiyay howlgallada lagu sugayo amniga maadaama lagu jiro xilli doorasho falka amnigan ay kordheen.